الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ورضى. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وعلى ذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وعلى ذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أيها المسلمون والمسلمات، كلمديdu way iska yar tahay oo sahlan tahay. أولاً ummaddan Soomaaliyeed ee halkan isugu timid khayrka soo raadsatay ilaahay waxaan ka baryaynaa dhammaanteen inuu nagu anfaco khayrka aan u nimid oo aan dhagaysanay inta aan fadhinay inta aan soo soconnay inta kulaylka aan u sabarnay inuu ilaahay nagu anfaco. waayo majaalista noocan sida rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay waa majaalis fadli badan oo meelaha qaarkood aan laga helaynin. dadka muslimiinta hadday meel isugu yimaadaan iyagoo akhrinaya kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala wax isbaraya isu naseexaynaya intaa haddii ujeeddadoodu ay tahay oo isugu yimaadeen alle subxaanahu wa tacaala waxyaabo badan buu siiyaa. alle subxaanahu wa tacaala sida rasuulkeenna uu tilmaamay ilaa xafathum almalaa'ika malaa'ig baa dadka wardiyeyn oo ilaalinaysa waqashiyathum arraxma waxaana daboolaya dadka raxmada alle subxaanahu wa tacaala. waayo waa dad muxsiniina weeyaan. dadka muxsiniintana waxay helaan naxariista alle subxaanahu wa tacaala. qalbigaagii baa naxariis helaya. ehelkii iyo dadkii aad ka soo tagtay baa loo naxariisanayaa. meytideedii baa loo naxariisanayaa. maxaa yeelay inna raxmatallaahi qariibu min almuxsiniin. raxmada ilaahay waxay u dhowdahay dadka muxsiniinta ah. wadakarahum allahu fii man cindahu sidoo kale alle subxaanahu wa tacaala dadka meesha isugu yimid ee ujeeddo kale aan u iman ee u yimid kitaab allahi jalla wacalaa barashadiisa iyo inay isu naseexeeyaan oo ilaahay xusaan. allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegayaa malaa'igta agtiisa joogta ayuu ogeysiinayaa oo uu leeyahay dadka waxay u yimaadeen dartay wax kale maynan u iman. waxaan idiin ogeysiinayaa inaan dadka u dambi dhaafay. waxaa leeyahay rasuulka allow waxaa lagu leeyahay ama malaa'igta waxay odhanaysaa dad baa meesha iska yimid aanan dadka ka mid ahayn. axaadiid kale waxay tilmaamayaan in lagu yidhi malaa'igta dadkaana waa u dambi dhaafay. waa dadka ay la fariistaan qowmun laa yashqaa jaliisuhum dadka la fariista aynan markaa khasaaraynin weeyaan. kuwaas ilaahay ha naga dhigo. walaalayaal aayadaha yareen akhriyey waa runtii aayado sharaf badan oo fadli badan oo u baahan in lagu tadabburo. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay ahlu iimaanka kuwa yidhi rabbuna allaahu uma istaqaamuu
كوير إلهي والرب كدمنا توصناضي إن ملائكة كسو دقيسو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قفك إيمان استقامة هدي لقهلو وحياه بدن بو قفك هليا سيدا درتيد بحديثك صحيحة أها رسولك أن ننك ويمت صلى الله عليه وسلم شيء يشهد أن كدق وحكير قل آمنت بالله ثم استقم وحاتر هذا إله بن رمي كدمنا توصنو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فإذا لقهلهم حيث تتنزل عليهم الملائكة ملائكة باكسو دقيسة ملائكة الرحمة أما عند موته أما شدة مركو كجر وقفك شدة لكلمه الله وحكو أرنا يا أولي هي ألا تخافوا ولا تحزنوا ضدك تكسو تكتين هكا مرقنا هرتي إننا عبسانينا خوف يحزني ضدك أمله وحيابها ugu badan ee annagana na haysta ee dadka cudurrada ku rida waad ogtihiin oo la jiradaan waa inuu ka cabsoodo mustaqbalka waxa soo socda ma dagaal baa dhici doona ma business ka halaabi doona wadanka ma laga guuri doona iyo dhibaato hore u soo martay oo qofku qalbigiisa uusan hilmaami karin dhibaato hore u soo martay labadaba qofka iimaanka leh toosnaada labadaba waxa weeyaan waa laga badbaadinaya alla takhaafu wala tahzanu kadibna qofkii markuu geeriyoodo waxa loogu bishaareynaya ahlul iimaan wal istiqaama janna wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun jannana ku bishaareysta waxa hortiinana ha cabsanina oo naar galimaysaan waxaad ka soo tagteenna waa la xifdinayaa jannana waad galaysaan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وقابك انترتينمنت لوغو سميني جنة لوغو سودوين ايو وحال ليها نحن أولياؤكم ملائكتي بالله الليسا وحالنا هاي دادكي إذين ألالين اي لا إذين سودري إذين سودوين اي في الحياة الدنيا وفي الآخرة جنة وحاتي ليسان ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون الدنيا ذا ولا ليال وحن جعل لها يودن لقام هلو أنا أقول دمانتين هذا وحن جعل لها لكن جنة ما تشتهي وحد هو طردن وهذا ليس ولكم فيها ما تدعون يوحد ويرته وحويان إن استقامة يا الإيمان بالله أن كنت أجنانه يا نصيحتي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم صحابيك جليلك سفيان وكيري قل آمنت بالله ثم استقم وحاتر هذا إله بن رمبي كدمنا توصنو استقامة وشيء مهم ويان استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ الوضوء إلا المؤمن رسولك صلى الله عليه وسلم سيرة توصنا هذا توصنانتا توصا أهنا شيطان باجيدك قفكو تاغان والله مكرو واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة عمل لسميانا وحا أقفل لبضان صلاة إلهي ونقفل ليالي سيدوك لرسولك وحويري ويسادنا ما حفظيو قف مؤمن أمبا ويساد حفظيا أو إلاليا إلهي وحان كبر يينا إنو أمني إيمان نسيو حقنا نوهن هنونيو اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي هب لنا من الصالحين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا